السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan marti sharafta halkan isugu timi caawa ee xafladan qiimaha leh ka soo qayb gashay ee dallada nagaad ay caawa u dhigayso marwo adna aadan ismaaciil number 1 ka Somaliland caawa xafladii loo dhigayay buugeeda ee loogu walqanayay ayaan runtii ugu mahad celinayaa dallada nagaadna in anigu anigoo yar baan bartay anigoo yar oon yaryarnahay baan adna aadan bartay adna aadan aniga macallimad bay ahayd walaashay Faadma Xaajina macallimad bay u ahayd markii adna aanu naloo geeyay waan garanayaa adna kelmadaheedii ugu horreeyay waxay ahaayeen adna kelmadaheedii ugu horreeyay waxay ahaayeen sabir yeesha كانوا نيرسين كديجانيني صبر ياشا وشقادا قبنا إنسان صبر وياشا فرت صبر كي هكا سام كقاضن جروب كيجي وحنو شنبان وهينو شنطة يدوا كلاس كي تضبيع لواتنكها نمبر 1 إلى 5 أنا قاعد نمبر 1 إلى 5 شنطة يدي بيسكو حجني تضبيع لواتنكي هبلوت هكا عندنا لوجي وحنا وجو حكتي أدني شقادة قبنا إنسان داعدو هذا وحدو شقين إنسان تدحن سنة يا شقين إنسان وحو شقين إنسان دمر ومولايا دمر مركا وحنون هيات وشقين إنسان داعدو هذا وجهينا نها كم وغطو إنا فرحتكو سودوين إنسان قفكا ونرتين إتكس وان قرانيا درسكا اما كلاسكا قادن جري اها نيرسين اثكس ادني markay dhigayso si janawana ayo runtii wadnaha ku taabanaya ayay noola hadli jirtay adna waxay ugu xigtay markii la kala tagay waxay ugu xigtay inaan ugu tagay Djibouti markaan ka dhalay bilaabayay waa soo maray waxa kelmad baan ka hayaa waxay tiri hareerahaaga ha eegin hortaada unag bi focus hortaada haddaad hareerahaaga eegto bay tiri galdaloolooyin badan baa ku muuqanaya ha eegina halka horta markii ay Soomaaliland ku soo noqotay ay timi way noo sheegtay waxaan furayaa bay tiri isbitaal dadkii ugu horreeyay ee shirka la galay baan ahayn waxay siday oo markaa Maxamed Xaashi iyo adniya ay sameeyeen waxay sameeyeen structure-ka ama dhismaha sidii loo sameeyay intaan sidaa cabaar u eegay ayaan ku marwa ma kana doonaysaa inaad samayso markaasay tiraha markaasaan dee lacagti waad inoo haysaa inta qosasho way tidhi mushaaradeydii baan hayaa UN-ta lacag kale meel ku oogi laakiin ka waynu dhisaynaa Somaliland baana dhisayso ila dhisaysabay Somaliland bay la dhisaysa waxaan garanayaa isagoo qabyo ah oo December tahay oo dhaxan tahay oo daaqada lahayn oo waxba lahayn ayaan halka hoose shir ku gal waxay nagu tiri adni waxba ma lehe kininkaynu qaadan bay tiri laba duriga hadii duray lagu dhacay in shirki waxaan u fadhinaa 2 saacadood waxadadna ma soo koobi karo halwaati khadrish ka warantay kama soo koobi karo adna ma soo koobi karo shaqaday iyadu umada Soomaaliyeed iyo umada Somaliland baa u qabatay laakiin midaan adna kaga dayeen markaanu neersanka ku jiray sida u socotaan u socon jiray waanu isku day jiray balaadii sida u socoto inaan u socono gooray naga tagtay iyaduna dhaaftay baan ogaan jiray markii dib noo soo eegtan waxaan oran jiray adni waxay noo soo eegaysaa waa gaabinaysaa daba cararo insan u daba ordaynaa ku daba xiiqay laakiin mid baan ka qaadan aan maanta aan ku shaqeynaa oo aan maanta umada Soomaaliland ku shaqeynayna waa daacadahaada bi focus waxa doonaysana qabataan haydiin muuqdo haydiin cadaado anigu waxaan kamid ahay dadka waqti kasta la tashada hadii aanan adna mar arag ama laba arag yani waxba iga maqan wax weyn baa iga maqan adna last year hadda ay November
waxaanu isu raacnay ingiriiska aanu isu raacnay waxaanu la kulmaynay House of Lordska odayaal baanu la kulmaynay House of Lordska odayaashii aanu la kulmaynay gaarigii baa taxigii aanu saarayn ayaa waqtigii waan daanay cidhiidhi bay ahayd dariiquna waan garanayaa waxaanu ka degno inuu yaacno si time-ka inuu soo qabanno saasaan u eegay ilaahay baan ku dhaartay intayadii raacday adnaa waanu soo qaban weynay iyadoo imika daadaas waxaanu ku tagnay on time baanu ku tagnay waqtigii markay waraaqda ay dhiibaysay akhriyeysay iyadaa waraaqda dhiibtay oo akhriyeysay madaxweyne ku-xigeenka dhiibayay laakiin akhriska way lahayd iyo wixii su'aalaha laga jawaabayayba waxa weeyaan siday laabta iyo qalbiga uga soo goyso Soomaaliland markay ka waramayso markay u sheegayso ummadda kale ka dhaadhicinayso annagoo dhan baa aamusnay qof juuqiili maanu lahayn waxaan ku soo gabagabaynayaa waa shamac noo baxay waa iftiin iyo siraadaanu eegano ilaahay cimriga ha u daayo oo caafimaadkana ha ugu daro ilaahay waxaan ka rajaynayaa haweenka Soomaaliland ee yar khadraan higsanaya halkii ay tiriyeen hablaha maanta soo kacaya jaamacadaha ku jira iyo kuwa sekondariyada ku jira iyo kuwa soo jafaaya ee soo socda inaanu siraadka adni inoo dhigtay iyo taariikhda inoo dhigtay inuu wada raacno annagu waxaan leeyahay ilaahay adna maalintu Soomaaliland u dhaliyay jawharad buu u dhaliyay jawharad ayuu u dhaliyay aad baan idin salaamayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa